السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني نفتي يتينبه وحنو دردارميا دردارنكي نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قفكو أدونك وجعلا oo ahaa xaaskiisii Caaisha radiyallahu anha hooyadeen Caaisha ayuu siiyay ayaan rabaa inaan caawo inaguna isisiino gifti iyo hadiyadna aan isu siino anigoo og inaad dardaaranka haysaan ama aad taqaanaan laakiin waa xusuusin insha Allah ta'ala Caaisha radiyallahu anha waxay ku tiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam ya rasuul Allah hadii ilaahay habeenka laylatul qadriga ila kulmiyo maxaan iraahdaa su'aal cad wey wuxuu ku yiri rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam Caaisha waxa tiraahdaa hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala kula kulmiyo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni du'ada aqri dadka qaar waxay ku daraan Allahumma innaka afuwun kariimun haliimun tuhibbul afwa fa'fu anna sida saxma kariim iyo haliim waa laba magac oo magacyada ilaahiya oo magacyo fiican laakiin ducada kuma jiraan qaabkan loo dhaho ducadu waa inta rasuulka ka sugnaatay sallallahu alayhi wa alihi wasallam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni hadaba ikhwani waxaan rabaa ducadaas bal ajaa'ibta badan ay leedahay inaynu fiirino horta kelimada afuwun shan jeer bay quraanka ku soo aroortay hal mar iyada oo qadiir la socota bay soo aroortay waxaana aad u cajab badan Allah wuxuu yiri subhanahu inna Allaha kana afuwan qadira fi surati an-nisa waxa cajab badan marka ikhwani oo baraarujin ah ilaahay isagoo oo qadiir ah oo awooda oo kara oo adiga caasiga ku karabo haddana afku ku siiyo uu ku dhaafay Allahu akbar afar jeerna ghafuur ayay kelimadu la socotaa oo dambi dhaafid ah laakiin su'aasha waxay tahay laba su'aalood inaan ka jawaabno maxay tahay macnaha afuwan muxuu yahay waxa la yiraahdaa laba macno ay leedahay kelimadaas afuwan laba macno ayay leedahay mid kamidii waa siismo oo su'aal qofan ku weydiisanin la iska siiyo raalina waliba laga yahay wa ilaahi waxa uu bixinaya subhanahu wa ta'ala macnaha labaad ay leedahay waxa weeye al-izalatu wal mas yani in la zuuliyo afwi sida loo yiraahdo afa alayhi zaman arabtu waxay yiraahdaan markii shay hore laga warramayo waxyaabo tagay waxaasi waa hore ah afa alayhi zaman waqti dheer ba ka soo aroy ama waxa la yiraahdaa afat ar-riihu al-athara dabayshiba waxay tirtirtay raadkii marka waa wax la tirtiray izala ayaa la yiraahdaa waa macnaha labaad ee kelimadu ay leedahay hadaba saddex arimood baa kelimadan afuun ku laran midda koobaad waxa weeyaan inuu ilaahay masaxay uu zuuliyay wixii dambi ah oo qofku u lahaa labo inuu raali ka noqday subhanahu wa ta'ala saddex inuu ilaahay siiyay عفويسة سبحانه وتعالى الله أكبر هذا بفرق يقول لحية محوية عفو يا غفور محاول لحية عفو يا غفور كلمة عفو أيا كحل در أيا اللي ذا كلمة غفور حتى صوتنا وحوية غفور وحلو أذيك سلا قف دنب ورها دنبي قفك ولا قد في oo ilaahi subhanahu wa ta'ala dambigiisa ka dhaafo uma ciqaabin laakiin asalkii dambigu waa mawjuud baa la yiraahdaa meeshii lagama tirin waa jooga laakiin afwigu wuxuu la dheer yahay intii qofka loo dhaafay ayaa haddana salkii laga soo tirtiray oo waa la zuuliyay tayib hadaba ikhwaani xadiidkan iyo ducadan xilliga ku soo aroortay oo ah bisha ramadaan oo waliba 10ka dambe oo waliba habeenka laylatul qadriga insha Allah ta'ala ilan habeen walba waa ka baara leeydo oo ka raadiye 10kan dambe hadda inagu soo aadan baanan aad uga raadinayna insha Allah ta'ala waxyaabaha marka xikamta ah oo laga qaado ducadan waxa weeye habeenka barakaysan wanaaga uu leeyahay oo ilaahi subhanahu wa ta'ala adoomihiisa uu cafinayo wa arinta labaad ee ihsaas iyo dareen
qofku inuu ictiraaf dembigiisa iyo khata iyo gaabni inuu gaabinayo inuu qofku is ictiraafo waa marka saddexaad marka la cafuwun tuxibbul cafwa yacni qofku wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala danni wanaagsan iyo malo wanaagsan ayaad ka malaysanaysaa waa marka afraadee inaad ku celceliso kelimadan allaahuma innaka cafuwun tuxibbul cafwa facfu cannii waxaa ka muuqata baahi addoonku ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba uu u baahan yahay dayib haddaba ayuha alaxiba waxa muhimkoo rabna inaan ishaarno waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala si uu inoo cafiyo inaguna khalqigiisa aan cafino qalbigeennana aan ka saafi garayno xiqdiga xasadka karaahiyada xumaanta ku jirta qalbigeenna aan ka saarno ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii aanu cafino ushhidu allaha ilaahay baan idin markhaati gelinayaa qof kasta oo dhibay aniga ama wax iga sheegay ama maaragtay suu iyo xumaan ila soo aaday ilaahayow dartaa baan u cafiyey allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii idinkana waxaan idinka codsan qof walbow inaad dadka muslimiinta iska cafido si ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana kuu cafiyo ducadaasna carabkeennu ha la qabsado habeen walbana yayna ku dhaafin inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisato si aad dardaarankii rasuulku uu siiyey qofkuu adduunka ugu jeclaa oo xaaskiisa caaisho ahayd aan inaguna u helo allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.